waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid wanaagsan dhammaan dadka daawanaya youtube-kan. maanta waxaan isku dayayaa bal inaan topic xiise leh ka hadalno ah KuCoin trading bots. KuCoin trading bots oo dad badani ay aad u xiiseynayaan, ay rabaan u malaynayaan ama ay lacag laga samayn karo iyo su'aalo badan oo taagan. waa good business idea oo kambanigu la yimid suuqana u fiican, laakiin lacag ma leeyahay? aniga waxaan qabaa waxaa lacag looga helayaa suuq maaragtay coin oo aad u fluctuation badan leh haddaad ka gasho, oo aad u dhacay u degaya, maybe inaad lacag ka samayso. haddii kale waa su'aal jawaab furan. hadda kahor waan isticmaalay laakiin saa uma xiiseeyo. laakiin waan isku daya inaan sharxo. wuxuu kala qaybooyin badan buu kala leeyahay, waa 5 qaybood. qaybo badan oo ka mid a baan isku daya inaan sharaxno. waxaan u horumarinaynaa DCA-ga, midkan DCA-ga ah oo ah bot kuu shaqaynaya investmentiga. kanoo kale ma xuma, kan this is good idea qofkii sameeya, waayo wax oo khasaaro badan oo kaaga imaanaya male. isagoo lacag baa gashanaysaa, waana waxaagaas dadka investorska this aad buu u anfacaya horta kan. for example hadda coinkan oo kale baan rabaa inaan DCA ku sameeyo ama dhaqaale gelin joogto ah ku sameeyo. waxaan rabaa inaan doorashooyinka intaana xulashaa lagu ogolyahay, ama saacad galo ama 4 saac 8 saac 12 saac maalin ilaa iyo 2 week. okay, week kasta waxaan rabaa inaan lacag dhigto coinkan oo uu ii kaco. goormaan galaya? waxaan galayaa waqti baan siinayaa si aan accountka lacag ugu shubo. caawa markuu yahay 10 PM 10:20 baan rabaa inuu ii bilaabo. investmentiga meeqaan dhiganaya? waxaan dhigayaa $25 a week baan rabaa inaan geliyo. hadda lacag iguma jirtuu leeyahay. so KuCoin midda kale rabaa waxay tahay marka aad KuCoin rabto inaad isticmaasho, because botku waxay ku jiraan trading accountka, waa inaad lacagta kusoo shubtaa accountka trading. haddii lacagtaada main ku jirtay, main tag transfer the money to the trading account, kusoo wareeji haggaas oo halkaa macnaha lacag transfer buu taabanaysaa, uu soo wareejinayaa. maximumka aan rabo inaan galo wiigii waa $30. optional buu isiinayaa halkan, oo waxaan rabaa inaan dhaho ii sheeg profitka. okay, profit waxaan rabaa markuu gaaro ilaa waxaan aaminsanahay baalkan inaan ka faa'iidi karo. isoo xasuusi, markuu gaaro 125%, waxaan rabaa inuu alarm ii soo dhaco. once the target is reached notify. markii waqtigaa la gaaro iisoo sheeg, isoo ogeysii, hawshaydana iisii wad. markii waxaa kaloo dhihi kartaa markii meeshaa la gaaro iibi waxayga, intaasaa ugu filan. ama waxaan dhihi karaa 250. markuu 500 boqolkiiba gaaro, hadduu gaarana iibiba baa oran karaa. taas waa xiratay oo ka markuu 500 gaaro uu isoo xasuusinayaa. confirm. markuu 500% markuu gaaro isoo xasuusi, iibi waxayga iga tuur. inta ka horeysa waa inaan week kasto $25 accountkaygaas ay ku jirtaa. marka badanaa haddaan rabo waxaan kale aan sameeyo, qofkii raba oo dadka iska shaqaysto oo rabo oo maalin walba sideenoo kale screen hor fadhin, waxay samayn karaan $25. okay, bishii $100 isaga shub meesha, si mar kasta uusan lacag u weyninba. 125 xataa ku shub, maadaama $5 dheeraad inta dhigtay, ama 150 bas ka dhig bishii. bis $25 meesha accountkaasuu ka bixinaya, meesha kuu gelinaya. so suuq hadduu dhaco iyo haddii kaleba adigu khasaare ma qabtid, mar kasto $25 gadanaysaa. sidaas baana suuqa uga badin kartaa. qofka dollar cost average sameeya, kurbadii oo dhan baa kaa baxaysa. intaas aan uga gudubno, waayo waxaan rabnaa kuwaan si fiican u sharaxno. spot grid. okay, spot gridku waa muhiim inaan fahanno. laakiin intaanan tan isla fahmin, bal aan isku dayo inaan grid waxay tahay halkan ku sharaxno, oo aan tusno dadka gridkani muxuu yahay. colorka aan bedelayaa xoogaa yar raalli hada. so bluegu soo istaago kasoo dhex baxaya meeshan.
gridkan waxaan ka dhigayaa casaan. so gridkii kasoo qaad inuu sidan yahay. buy side, sorry, qalinka soo qaato, intu waa buygii, intana waa sell. kasoo qaad $5, 4, 3, 2, 1.5. so kasoo qaad waxaanu ka galnay halkan 1.3 gaasaan ka galnay. so wuxuu sameynayaa, kasoo qaad waxaan gatay 74 grid ama 75 ama baan haystaa 6 grid oo kale. wuxuu ii gadayaa 38 buy ah iyo 38 sell ah. intaas waa gridskii way. these are the grids wuu ii sameeyey. so marka wuxuu sameynayaa halkaasuu ka galay, uu kacay, uu iska iibinayaa, uu soo dhacay, uu iibinayaa. so intaana oo dhar buu sameynayaa oo meel u yaalla isaga uu kala qaybiyey. waxay ku xiran tahay sida gridkaaga u qorato. hadhow baan tegaynaa. gridka wax kale maahan, waa sidaas baashii baa saa u kala qaybsan. intaasaan uga gudbayaa tanka in laga fahmay. so waxaan isku dayaynaa hadda inaan create garayno bot oo ah spot. okay, Luna, good coin baa soo baxay. coinkaana rabaa inaan ku sameeyo. so iyagu kuwan waxay ku leeyihiin automatic taabo, create gare, lacagta geli, shid. okay, waa u shiday fiirsiyaa ma sameynayo, laakiin waxay ku leeyihin shid. percentage meeqa rabtaa? 50% aan dhahay. ii bilow. no, ma doonayo taas. waxaan doonayaa inaan customize, inaan waxayga samaysto. so waxayga inaan samaystaan rabaa. marka waxaan tegayaa halkaas. halkan waxaa ka soo baxaya, waxaan arkaynaa KuCoin inta ay qiimaha ay maanta joogto kala rabaa inaan ogaado last 4 hours. KuCoin waxay u dhexaysay 85 iyo 82. okay, 85 82 85 iyo 82. so looga waxaan leeyahay 82. haygana waxaan leeyahay 87. so si wuu yar yahay. kasoo qaad marka 90 dheh, weli gridka wuu yar yahay. okay, halkan waxaan ka dhigayaa 80. 52 grids. wuxuu sameeyey 52 grid oo ah 26 baaya iyo 26 buu halka galaya. so marka numberka aan dooranayo rabo waa intaas, waa 52. waa good number. si haddaan laakiin dhaho isku dheereeyo oo isku weyneeyo, waxaa ugu dhacaya spreadkii ugu badanaya. haddaan dhaho $100 oo kale ilaa 95 baan gelin karaa. so 95 waxa waaye waa number badan. so wuxuu volatilitygaas waxaa ku fiican isku yara dhow oo ah baa ka fiican. so halkaa haddaan ka dhigno 92 ka soo qaad, 62 ama 95. I like that number. 75 oo kale. see, that's important number inaan fahno, dadku fahmaan. waan u dhexaysiinayaa. so suuqu intaas qiimaha joogo buu boodkeygu ku shaqeynayaa. so waxaan leeyahay 75 grades. 75ka waxa weeye oo ah oo loo kala qaybinayaa laba meel amaba 95.5 dheh ama 0.3 dheh. 76 aan u helaa. okay, halkan 76 38 iyo 38 maadaama aan gradeka hadda kusoo sawirno saas. intaasoo grade baan haystaa. profits grade feeskaasna ayagaa kaa qaadanaya. every move ay sameeyaan intaasoo lacaga bay kaa samaynayaan. every move oo ah suuqa markuu
uu faa'iido kuu sameeyo intaasoo move bay kaa sameynayaan. Okay, shid baan iri halkana imanaya total investment lacagta igu jirta luunada 50% ka mid ah gee baan ku iri. Okay, halkana waxaa ku haysataa optionals oo ah very important inaan shido stop price-kayga oo ah suuq hadduu gaaro 80 iga jooji baalkan haysii gadan saaxib. Profitkana waxaan ku qorayaa markuu gaaro 90 meeqaan ku qornay halkaa 6 ama 95.3 96. It's good because it has to be greater than that numberka meesha uu ku shaqeynaya. Intaas weeye, then create baa oranaysaa waa intaas. So gridka in la fahma u malaynayaa oo waa muhiim inaa fahantaa because suuqan waa inta AI-ga kaliya ku xiratid waxa ka fiican inaa customize aad aadid. Still wuu ku shaqeynaya boodkii laakiin wuxuu kugu shaqeynayaa parameter adiga u dhigtay. haddii qof waxaa tahay chartska yaqaana wixii yaqaana sharcigaada ku dhaqmaya, haddii kale ayagaa ka kugu dhacaya. midda kale halkan oo kale waxay kugu tusayaan fiiri waxay ku leeyihiin 6,800% baa la faa'iiday. ma ahan waxaas waa hadduu bato waa 19% way. taa waxaa u qaybisaa 365 waayo waa APR wax meeshan waa sanadkii way xisaabayaan. dadku nambaradan ay arkayaan waxay moodayaan 6,000 faa'iido aan boodkin laga helay. ma laga helin. wax laga helay ma jiro oo waxa weeye waa wax adiga lagugu dhacayo buu ahaa. marka automatic waxaa ka fiican in aad u customize garaysato waxaad gashatid oo aad saas yeesid. waxaa kuu soo haray future-kan midkan ah smart resemblance-ga. isagu kan wuxuu kuu sameynayaa portfolio-gaaga buu wuxuu kugu sameynayaa sida percentage buu u qaybinayaa. coin kartana waa ku daraysaa, coin kartana waa ka saaraysaa. so kaasoo kale waa ka tuurtay. so markiis kanoo kale ma rabo, kanoo kale ma raba iri intaasoo coin igu sameey percentage and then percentage investmentigaaga waxaad gelinaysa waxaad leedahay multi-chain shit. okay coinadaas iyo kaarta ku daraya waxaan ku dari karaa Luna. so Luna ku soo daray. so saasaa ugu darsan kartaa laakiin waa dadka oo investmentiga oo long termka igu jiro. laakiin badanaa dadkeena waxay u baahan karaan waa labadan DCA inaa ku samaysaan iyo inaa ku samaysaan sport gridka. kuwan kale uma baahnid infinitygan iyo waxaan dhan iyo kan future-ka waa too dangerous. ayo marka in la fahmay suuqa marka volatilitygaas ayaad waxa laga faa'iidayo oo baalkan uu ku jiro faa'iido laakiin markasta waxaa laga jaranayaa intaasoo faa'iido ah. marka waxaa ku jira wuu sameynayaa sell high buy low. wuu sameynayaa arbitrage-kaas oo ah inuu suuq faa'iidada ugu badan kuu sameeyo wuu sameynayaa laakiin waa inaad dee aad iska ilaalisaa coinada aan fadhin dhaqaaqayn oo kale aadan ku xiran iyo inaad coin aad hubto aad u bodboodayo aad ku xirato qiimahana aad u samaysato. kama malaynaya in la fahmay si gaabanna loo fahmay. waana mahadsantiin. assalaamu calaykum. haddii aad ka heshay videogan oo uu ku fahansiiyey sida boodka u shaqeynayo please subscribe buttonka noo taabo thumbs up-kana na sii ringigana ku xiro. so wixii aan soo dhignaba si gambaleelka uu kugu dhaco gambaleelka taabso meesha gambaleelka ku yaala taabo subscribe-kana dheh. aad iyo aadna u mahadsantahay inaad daawato oo videogan waana ka mahadnaqaynaa.